nimankii Soomaaliyeed ee aan soo dhigay Olympic ku jiray baan doonay update idinka siiyo oo roundkii koobaad wada ordayay waxay ahaayeen laba Djibouti mid Canada ah mid America iyo mid Soomaaliya labadii Djibouti waxay soo galeen kaalmaha tobnaad iyo wixii ka dambeeyay inankii Soomaaliga ahaana wuxuu soo galay kaalinta 8aad buu soo galay waqtigiisii buu ku orday wax yar buu malaa waqtigii uu ku ordi jiray hore uu yare dhaamay laakiin halkaas ku hadheen ragga dee damba bay ahaayeen ugu dambeeyaba orodka markuu dhamaanayay labada nin aan biladaha ka sugay laakiin waxay ahaayeen Maxamed Axmed iyo Cabdi Nuur waayo siiba Maxamed Axmed wuxuu ahaa nin soo maray Olympic Championship World Championship adduunkuna uu bilad ka sugay anigoo kaliya ma adduunka dhama bilad ka nin adigu afraad aan ka dhamaan weeyaan afraad saddexaad meelahaas mar walba soo gala marka bal isagii maanta inuu eegno ayaan darada ku dhacday baleega bal nasiibka ku dhacay baleega ninkan waa la riixay wuu iska dhacay wuxuunbaa dhacay amar ilaahay baa dhacay markaa ninkii wuu dhacay dadkii oo dhan baa ka yaaban lagana yaabo in la soo celiyo kani reebreebkii buu ahaa 5,000 finalkeedii weli buu soo socdaa maxaa kuu soo hadhay yarkii Amerikaanka kuu soo hadhay oo isagu World Championships iyo waxa hore u tagin laakiin xariifa Olympic nin soo istaagay line-up-keeda nin fudud maaha bal isaga inay ilaa nina saaxiibnahay baa yidhi England ma daawado anigu dhiikar baa laga qaadaa waa dhiikar socda buu yidhi Sakariye ya imika wallahi maanta madaxa igu kacay laba dhacay saddexna way iska hadheen yacni xaal adag buu ahaa waxa hadhay laba nin baa hadhay markaa imika Soomaali u hadhay labadii nin ee social media mar wada qabsaday intuu mid Kenyatigii dhaafay uu ninka kale u yeedhay lahaa war soo carar labadii nin baa hadhay Cabdi Nageeye iyo Bashiir Cabdi oo iyaguna marathonka ordayaan waa laba nin aad iyo aad u adag waa laba nin oo in badan ku soo jiray orodada waa niman aan bilad ka wada sugano aniga adduunka oo dhan seen hore u sheegnay waxa ka muuqata dhalinyartii Soomaaliya lack of quality training ayaa ka muuqata kuwa imika Olympic ka qayb galayna Olympiyada dambe rag waaweyn bay noqonayaan laakiin waxa looga baahan yahay inay inta dib u noqdaan iyagu argoostaan sidee u argoosanayaan marka waxa ku argoosanayaan inay dhalinyarta yaryar imika soo kacaysa ay tababar quality la soo siiyaan tababar khatara ay soo siiyaan altitude-ka ku train garayaan dadka badankoodu laakiin quality-gii baa niyo aad iyo aad hoos u liita oo quality-gii baa aad daciif waxa ka muuqanaya lack of training waxa ka muuqda muxuu ahay waayo qofku markuu tababar adag soo maro waa la gartaa bal waxa baadhan ayaa la Saleman baadha markuu bilada badinayay ama Mo Farah marka ragaas bilada badinayeen waad ka dareemaysaa qofkani waa qof soo tababartay sidoo isaga xajinaya marka fagaxda la soo galo inaad ku ordo waqtiyadii aad ku ordi jirtay ama qualifying round-kii aad soo gashay ama aad ugu soo baxdayba ciyaaraha adduunka aad weli ku ordo wax dhaawacna aanad qabin aad caafimaad qabto dhib weeyaan marka let's go Cabdi Nageeye iyo Bashiir Cabdi labadaa nin baa noo hadhay marathonka